galab wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan u diyaar garooba idaacadeena galabnimo inaad ka daawataan janaaladeenna YouTube-ka Dabaasha TV sidoo kale sirta wararka waa Jimco saaxiibayaal taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 11ka bisha labaad waa bisha saddexaad sanadka 2022 idaacadeena aalaba qaybtan waxaan ku ognahay inta badan dhacdooyinka ugu waaweyn ee caalamka iyo waxa ka soo kordhay xaaladda Ukraine oo dagaalada ay ka socdaan in marxaladda Soomaaliya maanta Jimcaana qodobada aan ku soo qaadan doono waxa qayb ka safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wada hadallo qadka telefoonka la yeeshay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda maamul goboleedyada loo sheegay in liiska cunaqabateynta lagu soo dari doono hadii doorashada ay ku soo leeyayaan waqtigii loogu talagalay maxaa dhaxmaray madaxda maamul goboleedyada ee safiirka Mareykanka xogo dheeraad ah kaga hayo ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxa kale oo qaybka macluumaadkii ugu dambeeyay la xiriirinta doorashada kooxda ra'iisul wasaare Roble oo u muuqdo kuwa looga adkaaday kuraasta kamid ah magaalada Beledweyne doorashooyinka yaaray tirada kuraasta ee ra'iisul wasaare Roble kooxda looga adkaaday doorashadii Beledweyne ka dhacday ayaan macluumaad dheeraad ah idinkaga haya saaxiibayaal waxa kale qayb ka ah galmudug oo ina dib u dhigtay kuraas la isku haysto imaantu Jimcaha la filay in kuraasta qaarkood banaanka loo soo saaro ama ay shaaciyaan waxa kale oo idin soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan ra'iisul wasaare Roble oo cadaadis xoog leh la kulmaya oo ku saabsan dib u dhacyada doorashada iyo Roble oo qarka u saaran xitaa inuu ku dhawaaqo iscasilaadiisa kadib markii uu ku guuleysan waayo waqtigii loogu talagalay doorashada in lagu soo gabagabeeyo warbixinadeena kale waxa qaybka Mareykanka ayaa sheegay inuu sii kordhin doono cunaqabateynta Ruushka uu saaray waxa kale oo qayb ka noqon doona saaxiibayaal Ruushka oo asna ku dhisa wadamada reer galbeedka cunaqabateyn saaray iyo Ruushka oo arin halis ah ku eedeeyay Mareykanka isbedeladii ugu dambeeyay ka dhacay dalkaasi Ukraine iyo xasuuq waali ah la soo tabinayo in Ukraine uu ka jiro dhammaan warbixinadan ayaan ku soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena subscribe noo dhig gambalelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena ugu waaweyn saaxiibayaal soo dhawaada mar kale kooxda Daacish oo ina hogaamiye cusub soo magacaabatay oo idin soo gudbin doonaa aan ku bilaabay jadwalka doorashada Soomaaliya waqtiga loogu talagalay doorashada Soomaaliya in lagu soo gabagabeeyo waxa uu ahaa in la soo gabagabeeyo bishan aan ku jirno Maarso 15keeda laakiin sida muuqata dib u dhac ayaa ku imaan kara waqtigii loogu talagalay maadaama waqtiga la haysto aad u yar yahay caqabado waaweyn ay soo kordheen arinta doorashada safiirka Mareykanka ayaa la sheegay in si toos ah u soo farageliyay markan arrimaha siyaasadda Soomaaliya isagoo wada hadallo toos ah oo la yeeshay madaxda maamul goboleedyada oo cadaadis xoog leh la saaray ra'iisul wasaare Roble oo cadaadis xoog leh wajahaya oo la soo sheegay in Roble cadaadiska ka batay awgeeda oo xitaa suurtagal ah inuu ku dhawaaqo inuu hawsha doorasho iyo xilka ra'iisul wasaaruhu iskaga tago maadaama cadaadiska oo sii kordhayo oo wajihi karo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Andre Lare ayaa wada hadallo qadka telefoonka la yeeshay madaxda maamul goboleedyada sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo gabagabeeyo doorashada 15ka bisha Maajo madaxda maamul goboleedyada kala ah Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Puntland ayaa u xaqiijiyay safiirka in ay soo gabagabeyn doonaan deegaan doorashada kuraasta harsan 15ka Maarso ka hor safiirka ayaa sidoo kale la hadlay madaxweynaha Hirshabelle oo ay ka wada hadleen xaaladda Beledweyne iyo caqabadaha ku xindaaban dhameystirka doorashada waxaana madaxweyne Goodluck uu sheegay in aan lagu soo gabagabeyn karin 15ka bisha Maarso doorashada xubnaha harsan ee Beledweyne iyo Jowhar isla markaana Cali Goodluck waxa uu dalbaday waqti dheeraad ah in la siiyo si doorashada loo soo gabagabeeyo safiirka Mareykanka waxa kale oo soo hadal qaaday xaaladda Garbaharey oo ina ay taala 16 kursi oo ilaa hadda wali wax mustawa ama ilaa hadda xal laga gaarin madaxweynaha Jubbaland ayay telefoonka ku wada hadleen asagoo uu sheegay in aanay suurtagal ahayn in doorasho lagu qabto deegaan doorashada labaad ee Garbaharey caqabado jira waxaana Jubbaland ay door bidaysaa in meel ka baxsan Garbaharey ku qabato sida degmada Ceelwaaq oo isla gobolkaasi gada ka tirsan sidan xogta ku helay ila ku dhow safiirka dawladda Mareykanka ayaa u sheegay in arinta Garbaharey ay noqotay arin doodoodu wali ay taagan tahay wuxuuna sidoo kale la hadlay oo arinta Garbaharey wuxuu si toos ah la tashi kala sameeyay aragtidooda weydiiyay sida ay u arkaan madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug kuwaas oo sheegay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo heshiiskii 17 September ee dhigayay laba magaalo doorasho iyo sidoo kale iyo hal magaalo waa laba magaalo doorasho iyo 101 ergo ilaa hadda la isku raacin sida laga yeelay arinta Garbaharey iyo in deegaan doorasho kale loo wareejin doono waxa jira wada tashiyo kala duwan oo xubnaha beesha caalamka ay ka yeelan doonaan arinta Garbaharey doodaha qaar ayaa ah in laga gudbo oo baarlamaanka la fariisiyo inta hadda diyaarka ah
maadaama waqtiga uu socdo inta diyaarkan ay doortaan hoggaan cusub sidaasna dalka loo badbaadiyo ayaa hadda xoogan ilaha diblomaasiyadan helin ayaa sheegaya in safiirka Mareykanka ku taliyay inaan loo xanibnaan doonin 16 kursi ee Garbahaare maadaama 90% hadda la doortay xildhibaanada sidoo kalena maamul goboleedyada kala ah Puntland Galmudug iyo Koonfur Galbeedna ay ku dhawaaqeen in soo gabagabeyn doonaan 15 Maarso inta harsan kuraasatan ayaana ka dhigan in 95% baarlamaanka Soomaaliya la soo dhameystiray ayna xari doonto wax yar oo Garbahaare ah iyo sidoo kale in yar oo aan badneen oo sidoo kale Hirshabelle qodheeda ayaa ayna dalbatay madaxweynaha maamulkaasi in ilaa 20 Maarso la siiyo fursad inuu ku soo gabagabeeyo tani ayaana ka dhignaan doonta in Garbahaare haddii xaaladdu sidan u sii adkaato laga sii socon doono haddii Garbahaare laga sii socdana uma fiicna marka loo eego dadka kuraasada halkaasi taala kuwaas oo baarlamaanka ka soo muuqan lahaa doorashada dhaqaale fiicanna heli lahaa dhinaca kale aan u gudbay ee kooxda farmaajo ayaa looga adkaaday dagaalka kuraas ka mid ah magaalada Beledweyne guddiga doorashada iyo waliba xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay inay ku fashilmeen dadaalo ay rabeen in lagu hor istaago Daahir Amiin Jeesow inuu ka soo hormuuqdo baarlamaanka maadaama ninkan uu yahay nin weyn taageersan farmaajo guddiga doorashada sida ayaa hore u soo saaray qoraal ay ku hakinayaan doorashada 3 kursi oo shalay ka dhacday magaalada Beledweyne kuwaas oo kala hoob 10 hoob 30 hoob 66 balse waxa xilli dambe ka haray waxaase xilli dambe kuraasaasi la qabtay oo ra'iisul wasaare Roble iyo kooxdu ay ku fashilmeen inay joojiyaan kuraastaasi qorshaha ugu weyn ee guddiga doorashada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa ahaa inay joojiyaan kursiga hoob 30 maamulka Hirshabelle u xiray inuu ku soo laabto Daahir Amiin Jeesow ninkan oo farmaajo si uu u taageersanay Fahad Yaasiin maamulka Hirshabelle ayaa 2 kursi oo kamid ah kuraasaasi shalay lagu doortay magaalada Beledweyne oo ra'iisul wasaare Roble ka codsaday in la joojiyo kuraasaasi dib loo dhigo maadaama dad gaar ah loo boobayo laakiin dalabka ra'iisul wasaaraha ayaana shaqaynin hoob 30 waxaa si dhib la'aan ku soo qaatay Daahir Amiin Jeesow oo hore kursigan ugu fadhiya isagoo taageero ka helaya kooxda farmaajo Fahad waxaana uu la mid yahay musharaxiinta malxiiska ay ku soo baxay doorashada hoob 10 kursigan waxaasna loo xiray nin lagu magacaabo waa nin uu watay madaxweynaha Hirshabelle lagu magacaabo Cabdiraxmaan Guray kaas asna safood ku soo baxay hoob 66 waa kursiga kaliya ee si furan shalay lagu tartamo waxaana ku guuleysay Maalik Ibraahim Cabdallah oo kursigan asaga uu ku soo baxay marka loo eego madaxweynaha Hirshabelle kooxda farmaajo ayaa u muuqda kuwa soo saaray inta badan xildhibaanada ay taageersanayeen Fahad Yaasiin ayaa ninka ugu weyn hadda galaangalka kule kuraasta la soo saaray dhinaca kale aan u gudbo Galmudug ayaa saaxiibayaal idina doodo waaweyn ay ka taagantahay dib ayaa loo dhigay kuraasta qaarkood guddiga doorashada ee Galmudug ayaa hal maalin dib u dhigay 3 kursi oo aad la isku haysto kuwaas maanta qorshe u ahaa in la soo saaro liisaskooda saxda ah kuraasta deegaan doorashada ay taalan galkacyo ee dhanka koonfureed waxaa qorshe u ahaa in maanta 11 Maarso la diiwaan geliyo lana shaaciyo maalinta berri ah sabtidana la shaaciyo haddana la doorto sida jadwalka hadda uu dhigayo qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada waxaa lagu yiri guddiga hal maalin ayuu dib u dhigay guddiga xulista kuraasta kala hoob 95 hoob 38 hoob 69 maalinta Jimcaha maanta ayaana gelinka dambe la shaacin doonaa kuraastan Axmed Macali Fiqi ayaa si adag u sheegay inuusan u tartami doonin kursigiisa hoob 38 oo iskaga tanaasulay hoob 69 waxaa isku haysa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa iyo wasiirka warfaafinta wasiirka xigeenka warfaafinta oo tartan adag u ka dhaxeeyo hoob 95 waxaa sanad isku haysa Khaliif Cabdikariin Khaliif Dalac oo kursigan ku fadhiya oo tartan adag wajahaya xaaladii ugu dambeeyay Ruushka hadii aan eegno Mareykanka wuxuu doonayaa in la kordhiyo cadaadiska la saarayo dawladda Ruushka iyadoo sidoo kale su'aalo la iska weydiinayo dambiyadii dhacay Mareykanka ma geli doono dagaal hadii uu Ruushku adeegsado hubka kiimikada ayuu yiri madaxweyne Joe Biden madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay xaaladda Ruushka ayuu sheegay inuu ka walwalsan yahay in hubka kiimikada ah ee nuclear-ka la yiraahdo inuu adeegsado dawladda Mareykanka taasoo caalamku hadda hubkan u aragto mid qadcas ah waxaa hubanti ah in Putin uu isticmaali karo hubka qadka cas ee dunidu ay hadda si weyn kaga naxsan tahay
Yurub iyo Mareykanka kuma biiri doonaan dagaalka ka soconaya dalka Ukraine sababtoo waxaan ka baqaynaa in Ruushka oo isticmaalo hubka wax gumaada ee nuclear-ka ayuu yiri madaxweyne Joe Biden asagoo sheegay si kale ay kaga falcelin doonaan Ruushka maanta wuxuu dalbaday shir degdeg ah in la isugu yimaado oo golaha ammaanka qaramada midoobay si looga arinsado kuraasta harsan si looga arinsado xaaladda Ukraine hase yeeshee shirka golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa la isku raacay waxay soo muuqataa maalinta bari inay dhici jiraan ma jiraan wax cadeymo ah kale oo dawladda Ruushka ay rabto inay isku difaacdo iyadoo la soo warinaya in dambiye iyo xasuuq badan inuu dhacay haddaba ma cadda Ruushka waxyaabaha ay la imaan doonaan shirka golaha ammaanka qaramada midoobay laakiin Mareykanka waxay saacad u sheegeen inaysan ku biiri doonin dagaalka Ukraine oo aysan taageeri doonin Ukraine maadaama haddii Ukraine ay taageeraan ay ka baqayaan in Ruushku adeegsado hubka wax gumaada ee nuclear-ka dhinaca kale dawladda Ruushka ayaa arrin qatar ah ku eedeysay Mareykanka xukuumadda Moscow ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu maalgelinayo xarumo Ukraine uu ku leeyahay kuwaas oo lagu hormariyo hubka waaweyn ee wax gumaada iyo waliba hubka kale wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in Mareykanka uu doonayo in si qarsoodi ah hub qatar badan ama halis badan inuu siiyo dawladda Ukraine si uu adeegsato dagaalka isaga oo wasaaradda gaashaandhigga ay ka digtay arrintan Mareykanka ayaa beeniyay cadeymo culus oo ay la timid Ruushka maadaama golaha ammaanka qaramada midoobay gelinka dambe ee maanta lagu wadan kulan qaas ay ka yeesheen arrinta aadanta xoog leh ee Ruushka u soo jeeday Mareykanka ay hub waaweyn oo halis ah oo siiyay xukuumadda Ukraine si ay u isticmaasho dagaalka Ruushka hubka la yiraahdo Polokil oo kamid ah hubka mamnuuca ka ah caalamka in la isticmaalo ayaa la sheegay in hadda Mareykanka uu siinayo Ukraine si ay dagaalka kaga qayb qaadato tallaabadaas oo la sheegay in xukuumadda Moscow ay ka digayso isticmaalka hubka waaweyn caalamka laga mamnuucay ee Moscow sheegtay in Mareykanka uu siinayo Ukraine tan oo ka dhigan ayna in isticmaali doonto hubkeeda wax gumaada ee nuclear-ka isbedelada caalamka iyo waliba sidoo kale arinta Ukraine ayaa u muuqata mid ay isii gudbi karto xaalad tan ka halis badan waagaag saaxiibayaal galabta Jimcaha warkeena ayaan halkaas ku soo koobaynaa